خديجة المخزومي فضلا على سودويو سمارة تجرولي فضلا سودو وحالك السلامة جالية غير كراجي ضمان أرضية ما خلت بسي هويك أرضية قبلها ليشة هويك كان عستضل كل أخوينتي كل وانا سلامي وحكى سي سلامة سراكيش إلى صعطهم وطن علي ربيع كواد كمرشة أتاجه وطن قدر المولد يكحوين كعبد فتاح ضمان وين سلامي ما تصير شكل سفر دير سوق لكن ما سفر كنا كلي كلا سوق كلا عبدي Soomaalida oo reer Karachi waxay leeyahay sharaf oo maanta halka ku imaaday anigoo aad iyo aad ugu faraxsan ardayda Soomaalida reer Karachi kala jibinayso gaar ahaan reer Pakistan waxaan leeyahay balyo waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo guddiga qalqaabasha oo ka soo qalqaabis xafladan aad u qurux badan waxaan leeyahay shaqo aad u fiican qabateen ma sha Allah ilaahay والله كان إلهي كرم كرم وحاول كان كركسي سلامة قدوميها كراچي مدن سعيد كولوني وما زلتي أرضي Soomaalida waxaan leeyahay dhammaantiin guushaan ma ahan sida waalidiinta maanta oo ku arkay farxadda aad u weyn ee ku farxeen dadaal dheer inagoo kusoo jirtay maanta inaan ka farxisiin waalidiintiini كليك والديتي مو فرحين وحاول ما فرحت أنا كنا سفارة أهان يوم الصومالية قدمان فرحت أنا وتحوي ماتا وحنا همبليو وحنا آد وقصير جينا إن شاء الله الضيدة كاي وبلاوي سجام عدد وضو إن أيك كفى إديستان طب كانوا أحيانا بدل لقى فإديست كانوا لقى فإديستو وودن أو وحياله بدن نجف إديس برنك وحبرشة وحرجينا ضيق إن شاء الله إنه وحيالها برنك وحبرشة كيف إديسته أرضينا ما دخل الجيب سبحانك عرسنا عليك إنه ولا الله كذا جيري جليان قادات يا سومرين وحيالها يا سومرين كذا إنه كلا طليان رواية هذا قرح بطنين نواع كماتا وحاوي سؤالنا waxaa qabay mareer Pakistan ama reer Karachi su'aashaas marka insha Allah waxaan rajeynaa sida loo tuuray maanta guuli gobnimo noo rajeynaa insha Allah kuma dhiiraanay waqti dab maadaama tahay laakiin waxaan rabay dadka kala jibay maanta hal waxna ka codsado weydiiyo waxaan rabay inaan ka codsigaygu waxa waaye dalkii wuxuu u baahan yahay wax lagu soo kordhiyo kaliya maanta la bartay oo shaqo laga raadsado ama shaqaale noqdo waxa jeclaan lahay ardayda maanta kala jibisay wax dalkood ay ku soo kordhin karaan ee la imaan karaan inay la imaadaan dadka waxyaalo badan u baahan kaliya kala jibin ma aha dadka waxyaalo badan ka maqan waxyaalo fara badan anaga maqan dalka wax maanta maadaama uu yaalo waxa jeclaan lahay fikir cusub wax oo dalkii anfacayo ummadii anfacayo dhibaatooyinka ninka ogina soo marteen wax lagu soo kordhin karo oo maanta dalkaaga ay ku noqoto ku soo kordhin kartid taasna aad u fiicnaan lahayd waxaa dad badan arrintaas kala hadla laakiin oo rajeynayo in rabaan laakiin actionkii ama dhaqaaqii ay sameyn karin marka waxaa kusoo gabagabeynaa maanta hadalkeygii maadaama ogaa waqtiga kaftan yaraa kusoo gabagabeynaa arrintaas ninaan hadda ka hor waxaa la dhahay nin hebel wuu dhintay habeen jimaaca soo galaysuu dhintay xaramkuuna ku dhintay oo bil ramadaan ay tahay markaasuu aamusa wuxuu yidhi waa sidaa damacsanahay marka waxaan rajeynaa ardayda inay ayagana insha Allah waxay sidai damacsiin ee dalkooda ugu noqdaan insha Allah caafimaada loo rajeynaa guul insha Allah sida kale insha Allah reer Karachi aad bay u weyn tihiin horumar iyo sidaas ku jeceshihiin ara mar walba sidaan ka sii fiicnaatiin marka guul anoo dhaafa
إن شاء الله نحرجينا سيدا سكة بدن إن شاء الله تقدر ضمن أسبوعين معنا هذه ما تنتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. would like to call Her Excellency Mrs. Khadija Mohammed Al Maktoum. Thank you. Assalamu alaikum. Good evening.
Excellency Dr. Tariq Banur, General Federal Minister Higher Education Commission, Chief Guest, Excellency General Nasir Khan Janjoon, former National Security Advisor, Excellency Dr. Junaid Zaid, Director of ComSed. I would like to thank as well the Council of the Islamic University, ambassadors, my colleagues, ladies and gentlemen. Good evening once again. Thank you very much for sparing time from the tight of schedule to be here to attend the Somalian student graduating ceremony 2018. Thank you very much. I would like to express Pakistan. Pakistan has been given really good student. We have a high number of Somalian students, more than 1,500 around all over Pakistan. As you see that there is a Peshawar, Lahore, Islamabad, Karachi already has been done the ceremony of graduation for Somalian students. Somalian has been learned a lot because from Pakistan we have very high students, as I say so, and the Institute of Education, Pakistan. We really know in Pakistan we have very high education Somalian community. I mean, in Somalia back home there is a lot of Somalian has graduated from Pakistan, and today they are leaders, they are MPs, and they are ministers. And also institution of Pakistan, we really thank you for higher educations, economic affairs. I don't want to forget anyone, but I would like to thank all the universities has cooperating with the Somalian students in Pakistan. Once again, hopefully the students graduating, they always remember Pakistan and they have it on their heart. Pakistan is we have been a lot, they learn a lot. The student after getting education from Pakistan has established to Urdu speaking colony in Pakistan. هذا هم سنتين وحنقول لنا يا همبليو. What we learn from that experience is of fundamental importance. We learn two things. We learn, number one, that we are all the same. And we learn, number two, that we are different. Dr. Baruni, I'm not in my best shape. I think actually I'm here as representative of a country which is very traumatized in Somalia. But on this occasion, the country, the European country, outside of the UK, which hosts the largest number of Pakistani students,